عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام دمانتين سو دوادا codkayga hadii xoogaa uu yahay kala hada mar dhowna mid ka soo kacay alxamdulillah nabad qabnaa inaan nabad qabtii ma rajeynaya ugu horreyn hadaan ugu cusubtahay soo dhawow subscribe noo saar videogana like noo saar hadaa ka heshay wixii farana comment noogu rab asxaabta noo share kale aad baan idin salaamay soo dhawaada waxaa jirta arrin yar gabar yar oo maalmahan macnaha aad uga soo hadasho TikTok macnaha waxay ka sheeganaysaa waalidkeeda khaasatan hooyadeed maalin hore waxaan arkay ayadoo lahayd hooyaday macnaha marka iskuulka ka soo socdo kale xabsi ku qabanaysa gurigii tagtid waxa sameynaysaa ay kale waxay tiri macnaha waxyaabo fara badan ayadoo ka sheeganaysa hooyo maaha kaliya in caloosha lagu qaaday oo lagu dhalay taas kaliya hooyo lagu ma noqdo waxyaabahaas oo kale xalayna video waxaan arkay ayadoo le maxay helay aabahay baa igu soo dacwo aabahay marka uu sheegayna waxay u tiri aabaha ma dacwoon kartido waxaan qoray inuu aabaha dhintay okay taas iyo tiyaro kale oo maxay helay ariyaro kale iyadna daba gelin doono aan markay sir dul taagno xoogaa yar inaguna ku fogaaneenin iyo dadka Soomaalidu waxay kaleeyihiin qof waliba commentiga wuxuu ku soo qorayaa marka xabad wallahi laga reebo hooyo xun ma jirto inaan xun baa jirta naya wad caasibatay naya sanbatay hadaba Soomaaliyeed hooyo xun way jirtaa hawlanina hooyo inuu ilmo la dhalo hooyo lagu ma wada noqdo horta qof kasto ilmo dhalay waa run hooyo weeyaan laakiin hooyooyinka kala naxariis badan kala wanaagsan kala jacayl badan okay markaad leedihiin gabar xun baa jirta hooyo xun ma jirto gabadha xun berito markii weynaato miyaan hooyo noqonaynin taas hooyo xun soo kama soo baxayso okay waxa jirta marka horta gabadhan yar Ilaahay baa og si xaaladdu u jiraan laakiin markaad hadaladeeda u fiirsatid aad dhageysatid waxa heshay hooyo macnaha xoogaa kulul amba adag si Soomaalideenu ay u badan yihiin hooyada adag oo ilmaheeda jacayl iyo wanaag soo dhaweeyay tusaynin intaas marka laga sii tagana anigu horta shaki baa iga jiray marka inanta ay ahayd hooyada maxay ahayd hooyadeed macnaha ka eedsheegaysay dumarkeena Soomaalida inta ugu badan gabadho amba dumarkeena Soomaalidu ninka ay kala tagaan ilmihiisa hadii ay ninka xumaan ku kala tageen aad iyo aad macnaha u dhibaateeya waxaan isir waxa ka dhex muuqda malaha ilmihii ninkii baa ka dhex muuqda garan maayo wallah laakiin gabadhay waxay ogaataa ilmahan adaa dhalay Ilaahay aduu ku siiyay maxay helay kaliya ma dhalin tabcan adiga abtihood baa wada dhalay laakiin haddana hooyo tahay hooyo marka waxa laga baahan yahay naxariis jacayl soo dhaweyn wanaagna samaysid talabaad maaha maxay helay ilmuhu iska dhal maaha Soomaaliyeed waa la dhalaa waxa lagu dhalaa si aqli iyo maskax ku jiro ilmahan aad dhalisid kaliya adigu inaad baari uu ku noqdo ha ka sugin adiga hadaanad wax ka shanin waayo waxa leeyahay beer kastaba wixii aad ka beeratid bay kaaga soo baxda hadaa tiraahdo beer waxaan ka beeranayaa tiin iyo waxyaabahaas oo wax idhiba geeda idhiba wixii aad ka beeratay unba kaaga soo baxaya hadii aad tiraahdo cambe iyo tufaax iyo maxay ahayd waxaan ka beeranayaa xabxab iyo waxyaabahaas muus iyo waxa wanaagsan wixii aad ka beerato ma kaaga soo baxaya hadaba ilmahaaga hadaa markaad yar tahay uu yar yahay aan diin barin akhlaaq wanaagsan ku barbaarin naxariis tusin jacayl tusin waxaad ka sugtaa hadhow markuu weynaado ha oranin ilmihii baa caasiga noqday waayo adiga yaraantiisa caas ku soo ahaa waayo wanaag oo dhan soo barweyday jacayl baa tusi weyday marka adigu caasi ku noqotay ilmihii asagana waxa ka sugsaa inuu baari ku noqdo xaasha weeyaan wallah marka dumarkeena Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ilaahay laga boqo arrinta loo jirjiracsanaado talabaad waxaan ku waxa weeyaan arrin waxaan ku arkay gabadh Facebook waxa ku soo qortay gabadh yar 4 jir baan haystaa urad ku ah gabadh markay tahay 4 jir oo urad ku ah oo maxay ahayd maanta dhan ciyaar isku joogo ilmaha hadaan u dhigay ilmihiiba inta tuurta bay ciyaar u kacaysaa ilmaha duu imaado ku kaale waxa la sameeyay way la sameynaysaa waxyaabahaas iyo waxyaabo kale ka sii badan hadaan dilo iyo hadii aan daayo waa iskaga mid dadka dhan baa igu caayib taagan tahay doqon weeyaan okay inta markaas dul taagna hadaba dadkeena Soomaaliyeed waxa rabayna arrin fahansiyo gabadha saas oo kale soo qoraysa ilmo 4 jir ah ayay waxay ka rabtaa inay ilmo hayso
waxay ka rabtaa inay hawlo wax u qabato waxay ka rabtaa in ay sida iyadu rabtaa ilaahay baa ku dhaashay 4 jir miyaanu hayn ilmo yar oo maxay haday qacanta la hayo oo cuntada afka loo gelinayo miyaanu hayn ilmo yar oo asaga u baahan in saxarada laga soo nadiifiyo wax kasta oo u baahan in loo qabto sidee baa ilmo kale inta loogu dhiibo loo leeyahay hay markii dhulka dhigtay ka kacdana loo dilaya okay ilmaha hadaba imika 4 jirta ah ee lagu soo bilaabay dilka iyo abuse-ka iyo qayladaasi بريتولي markay 15 sano gaadho 15 sano ma yiri gaadho 10 sano maalintii gaadho hooyadeed maxay ka sugaysaa inay u qabato 4 jir ayay kaga rabtaa inay wax badan u qabato 10 jirna waxay rabtaa inay madaxa saarato guriga dhan ayada qacanta ka saarto sax haday qaban weyda hadaba waxa kaga imanaya waxa kaga imanaysa waa dil waa cay waa eriyad waa maalinta 15 sano gaadhana waxa teewaad orktihiinba waxa halka ka sii doona marka gabadh 4 jir ilmaheedii ku waxan ku abuse-aysa oo hawl iyo wax qabad ku dilaysa oo ku caayso waliba kula dadka ay ku caayaan hadaba yaa doqon ah ilmaha doqon maahe hooyadeed baa doqon waayo waxay ogolaateen in inteeda la caayo kow waxay ogolaateen in inteeda ilmo hawlo kale iyo ilmo yar in qaban kareen 4 jir ah ay ku gumaysato ilaahay baan ku dhaashay dumar carruurta gumaysiga ka daaya leeyahay ma siinin inaad gumaysataan jaariyad inay hablaha ma waxa u dhashan inay jaariyad idin noqoto oo idin shaqayso oo wax kasta idin qabato no adduunka adiga keenay adduunkan kasoo ilaahay adigu ku siiyay oo mas'uulka ah adduunkan keenay marka lagama baahna inaad gumaysatid inaad dhibaataysid inaad waxaanay qaban kareen aad ku qasabtid ilaahay ka yaaba carruurta sanu dhaama waxaan ku waxa taqaani waxba la dhalaa waa la iska dhalmaa sheekad iska dhal iyo waxa waa soo dhafay 6 sanadood marka jirtay miyaanad guriga hooyada aan gurigiina aan qaban jirin miyaana hawl badan laga tagay okay markaas waqti hore ahayd 9 iyo 2000 lama joogo 3 baa la marayaa hablaha gumaysiga laga daayo hablaha jaariyadnimo looma dhalayo ilaahay miyaanad ka yaabinin inuu ilaahay intuu ka qaado internet haysatid oo ilmo dambaba ku sii waayo oo gumaysatid ilaahay ka baaqda aakhir xisaab badan baa taalo wallahi Soomaalida dhexdeeda hooyaha dhihin aabaha dhihin maanta waxa la leeyahay aaba xun maxay ragii baa maanta la eryanaya hooyooyinkii ayaa ka daran marka la leeyahay hooyo xun ma jirto tan 4 jirkeega dilaysa ee gumaysanaysa ee cunaysa ee kule afar sano wax badan ku qabo hooyo maanahay markay ka soo hindis laga soo hindis may waa hooyo xun waliba marka ilaahay ka baqda hooyooyinka isku mid maaha alxamdulillah hooyo far badan oo naxariis badan way jiraan marka waxaan leeyahay ilaahay laga baqdo carruur hal la daayo hala korsado hadii aydan arkaysan inaydan haysan karin loo intaad kii 4 jirkiina ilmo yar oo waxaan ku dadaadiisi waqtigiisa socda aad ka dhigeenin kii maxay ahaydeen 2 jirka haana aaba maxay ahaydeen sanadka jirina aad u dhiibaysid walaalahay carruurtan adiga dhalay ha soo lugoyn hadaan haysan kareenin ha soo lugoyn hadaan u shaqayn kareenin ha soo lugoyn hadaan mas'uuliyadooda dhan aan madax saaranaynin xabad iyo 2 iyo 3 iyo 4 inta isku arkaysid inaad mas'uuliyadooda qaadi karaysid walaalo dal kuma qasbanin inaad iska dhaldhashid kuma qasbana inantaaduna inay adiga ku shaqayso okay sax waad dhashay waxay kugu leedahay waxaad ku leedahay inay baari ku haato laakiin inta ka hor adiga laga rabo inaad baari waatid carruurtana diinta bara diinta ku barbaariya waayo birtoola hadad xataa wax ka ay macnaha wax ka tibanayso meelaha kaaga ma sheegaysa markay diin leedahay waxay kugu dhaafaysaa waa hooyadii wax kasta igu samayso waa ilaahay dadtiba ku dhaafay intaas bay kugu dhaafaysaa laakiin marka diin bari weydid akhlaaq bari weydid nacayb iyo adeeg iyo dil aad ku soo korisid wax kastaba inay meelaha ka sheegto adiga oo sababa intaas video ku soo koobaya way nagu dheeraaday assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh